munaasabadan lagu xusay maalinta caalamiga ah ee dalqaadan la'aanta gudniinka fircooniga oo 6 February laga xuso dhammaan caalamka oo dhan oo ay soo qabanqaabiyeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa waxaa ka soo qayb galay siihayaha xilka wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada siihayaha xilka wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo xubno ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka sidoo kale munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay haweenka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada sida xarumaha caafimaadka degmooyinka iyo madax ka socotay hay'adaha caalamiga ah sida hay'adda UNFPA oo wasaaradda caafimaadka ka taakulaysa adeega caafimaadka taranka iyo marti sharaf gale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar oo ka hadlay munaasabada xuska maalinta caalamiga ah ee u dulqaadan la'aanta gudniinka fircooniga ah ayaa xusay in bulshada Soomaaliyeed ay waqtigani wax badan ay ka fahantay halista gudniinka fircooniga ah waqti dheer kadib iyo dadaal wasaaradda caafimaadkana ay sameysay siyaasadda lagu dabargoynayo dhaqanka bulshada ku ragaaday ee gudniinka fircooniga ah runtii dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo wasaaradda caafimaadka waxay had iyo jeer ka shaqeeyaan sidii loo dhimi lahaa gudniinka fircooniga dhibaatooyinka ka yimaado kuwaas oo runtii khatar badan ku ah haweenka Soomaaliyeed keenana runtii inay kor u qaadaan dhimashada hooyada uurka leh waxa anoo soo koobay waxa inta lagu guuleystay in siyaasadii lagu tirtirayay in la dejiyo sidoo kale waxa mahad balaaran ay u sugan tahay hay'adaha UNFPA UNICEF AMISOM iyo dhammaan inta qayb ka qaadatay halganka loogu jiro sidii loo yeelan lahaa gudniinka fircooniga runtii in la gaaro ama laga dhabeeyo waxa loo yaqaan zero FGM tolerance guusheedu way dhowdahay siihayaha xilka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Cali Maxamuud Cali Xareed ayaa xusay in gudniinka fircooniga oo waxyeello ba'an uu ku hayo oo dhinaca caafimaadka ah gudniinku waxa weeye arrin khatar ah oo caafimaadka gabdhaha khatar ku ah wasaaradda caafimaad haddaan nahay iyo haddaan dawladnahana doorkeena haddaan sii sheego waxa weeye inay naga go'an tahay inaan arrintaas aan haba yaraatee loo dulqaadan sharciyo ayaa ka jira oo aan filayo inuu gudoomiyuhu noo xusi doono waxa weeye caafimaad ahaan iyo moraal ahaanba iyo arrimo badan oo caafimaadka ku taxalluqay arrintaasu ku saabsan tahay oo niyadjabin bay ku tahay gabdhaha siihayaha xilka wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwa Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sidoo kale sharaxday dhibaatada haweenka Soomaaliyeed ka soo wajahda gudniinka fircooniga ah arrimaha gudniinka gabdhahana kaasuu qayb ka yahay wuxuuna si cad ugu qeexan yahay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobkiisa 15aad farqadiisa 4aad oo sheegaysa gudniinka gabdhaha waa caado naxariis darro iyo xaqiraad u dhiganta jirdil gudniinka gabdhaha waa reeban yahay sidaas daraadeed wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan dawladda waxaa ka go'an in ay ku dhaqmaan faritaanka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidii looga hortagi lahaa xadgudubka sidaan kor ku soo sheegay heerka gudniinka Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 89% haweenka da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 49 ee lagu sameeyay gudniinka fircooniga diinta islaamka laguma sheegin isla markaana gudniinka fircooniga ma tilmaamayso in la jarjaro xubnaha bini'aadanka kaliya waxay ka ogoshahay gabdhaha in la sunneeyo oo wax yar la taabto balse lama ogola in la jarjaro jirkooda sidoo kale xilligii uu noolaa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lama sheegin haween jirkooda la jarjaray
qisooyin laga soo aruuriyey xilligaasna ma jiraan sababta keentay waa waxbarasho la'aan wacyigelin la'aan bulshada dhexdeeda ah ka jirta waddanka gudihiisa waxaana looga hortagi karaa in la siiyo fursad waxbarashada dhinaca diinta iyo maadiga gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdi Cawad ayaa sidoo kale munaasabadaasi maalinta caalamiga ah ka hortaga gudniinka fircooniga ah waxa uu ka sheegay in bulshada Soomaaliyeed uu dhibaato ba'an dhinaca dhaqanka diinta iyo caafimaadka la xiriirta uu ku hayo gudniinka fircooniga ah jiilka cusubna looga baahan yahay in waqtigan qayb muhiim ah ay ka qaataan in la dabargooyo dhammaan gudniinka fircooniga arrinkan hormuudka ka ah yacni in ay diyaariyaan waxa weeye waxyaabihii wacyigelinta ahaa ee la gaarsiin lahaa waxa weeye waalidiinta iyo ardayda arrinkan haddaanan iskoolada laga gelin oo aanan halkaas laga soo bilaabin oo aysan gabdhuhu ka hadlin magarat haddaad ka hadashaan waxba idinka biibaayaan ha laga hadlo ha lagu dhiirado waxa weeye la weydiiya maxay tahay waxaan maxaa annaga la daba dhigay arrinkan ya waxa weeye sharciga oo waxa weeye caalamiga saasuu sheegayaa sharciga dalka iyagu saasuu sheegayaa diinteeda islaamku saasay sheegaysaa xuska maalinta caalamiga ah ee u dulqaadan la'aanta gudniinka fircooniga ah ayaa 6 February maanta oo kale dhammaan laga xusaa dunida caalamka waana maalinta loo aqoonsada halista gudniinka fircooniga ah oo u leeyahay bulshada ku dhaqanta Leyla Cadad Samaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.